damo gabadha yar inay wax yar xitaa khaylis isku daydo eedadii waa ku sii jiiday xiriga yani saasa ku sii yeelay waa ku sii dhuujine. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب شرفت سكسونا قشوة نكسنا وعن شانل كذاك عصبتها فضلا سبسكرايب نوصار فيديو لايك نوصار قفل با معلن ولي هاي أما وصمري معلن مادو هاتو معلن دوكسي هذا ما أنت وحا أقادونتين شيكو آد لياب وله oo ku saabsan maclimad oo ma sha Allah oo ilmaha jiilooyin badan wax soo bartay ilmo badan jiilooyin badan waxyaabo badan soo bartay oo kaale arag ma sha Allah ilmaha wax fahansiin jirtay wax bari jirtay oo talooyin fiican sii jirtay qudwad yani oo ahayd oo maxaa la dhihi jiray jacleed ardaydeeda oo si jacayl buuxo sii jirtay dhankaas iyo waxbarashada oo laakiin gudaheeda xaasidnimo cuqdad iyo xaqdinimo qayaano dhagar adii sifaadka xumaanta lagu garanayo dhan ayada ku soo wada aruureen ay ayada ku wada dhan yihiin oo gudahaas macnahaas haska fadlan subscribe isaar hada subscribe ahayn like na isaar agtana muhiim waaye marka insha Allah videogeena guda galeena dabcan waxa isweydiinaysa maclimad wax soo bartay sidee qoys dhan u baabi'i kartaa waa ogaa doontaa taas insha Allah videoga dhameyso waxa kale ogaa doontaa videogan marka dhameysato macnaha xasidnimada iyo xaqdiga iyo naceebka badan oo qofka saameyn intee la eg uu ku yeelan karaa noloshiisa micnihiisana maxaa waay macnaha runta ee xasidnimada iyo naceebka iyo xumaantaas oo dhan haddii laisku soo wada dardaro micnihiisa runta ku ogaa doontaa videogan waxaa ka hadli doonaa qoyska Yuusuf ustaad Yuusuf waxay kasoo jeedaan Maghrib dalka Morocco wuxuuna guursaday Naciima oo u dhashay 3 caruur ah marka wiilka koowaad Hashim ayaa la dhahaa 18 jir waaye gabadha ku xig gabadha xalla Ayman waa 17 jir kadib sanadooyin kadib adi 17 sano ilaahay waxan muunan siinin ilaahay wax caruur ay muku arsaaqin ma fahanteen marka adi 17 sano ay sugaayeen kadib ilaahay wuxuu ku arsaaqay gabar oo qurux badan oo ay u bixiyeen jihaan ma fahanteen gabadha waxa waay gabar oo aad loo jecel yahay ahayd gabar waxay ahayd oo dadka dhan ay ku wada farxeen markii la dhalay maadaama waalidiinteeda ay sugaayeen muddo badan oo ilaahay wax uunan siinin ma fahanteen wax awlaad uu ilaahay uunan siinin ustaad Yuusuf gurigiisa waxa soo horjeeday guri walaalkiisa uu degan yahay xaas leh caruur leh 4 wiil u joogto maalmaha ka mid ah waxa dhacday 2016 qaasatan bisha Ramadaan maalinta ku kooban tahay 11 faanday 11 Ramadaan ayaa waxa dhacday maamada iyo adi familkiyo wada jooga waxa safar u baxay zoojkeeda ama xaajigeeda safar oo like shaqo camal oo u baxay like meel dheerna ma aadin adi meel dhow ahayd shaqadiisa asaas ahayd sida loo joogo oo bixi jiray oo safri jiray shaqooyin iyo waxaas u safri jiray waxa kale oo shaqo aadi jiray wiilkeeda Hashim asna waxdii markoo ka shaqadiisu aadi jiray marka maalintaas 11aad maalin busy ahayd Ramadaanka ma waa iska ogtihiin marka maalin busy ahayd maalin shaqo badan maamadii marka waxay waayis qof oo banaanka oo adeeg far badan uu soo gado ay waayis markaas waxay ku qasbanaatay ayad inay baxdo guriga ay ku dhaafto gabadheeda weyn Ayman marka waxa kale la nooleed Yuusuf hooyadiisa oo ayaga la nooleed oo yani miskiin iska dad badhibeenin oo wheelchair ku socoto marka ayada kaligeed aanan socod karin oo wheelchair oo adi oo wheelchair oo lagu riixaayo wheelchairka la saarayo laga dejinayo lagu riixaayo ma fahanteen ayaa la nooleed ayada qol gaari qabtay maamad maadaama ay ayada ku qasbanaatay inay baxdo adeegeeda doonato guriga waxaa ku soo haray ayaydii
ilmaha dabcan ayay u ahayd iyo gabadhii ayman iyo jihaan yariisay ma fahanteen gabadhan jihaan gabar aad loo jecel yahay ahayd la koolinayo la jecleeda guriga ahayd dabcan ilmaha oo markay yar yihiin qaasatan ilmaha ugu yar yani reerka aad loo jecel yahay maho marka gabadhan kasii daran xad dhaaf ah loo jeclaa familka dhan ilaa familka aabaheed yani walaalkiisa oo adeerkeeda ah oo daris kale ah xataa ilmaha zaaid u jeclaayeen ma fahanteen ilmaha mar walba way imaan jireen inkastoo ay ka waaweyn yihiin wiilal ay ahaayeen way ka waaweynayeen laakiin maadaama ay jecel yihiin ciyaarteeda inay la ciyaaraan sidaas darteed mararka qaar way imaan jireen gabadhii aaway jihaanay dhihi jireen jihaan aaway waa inaa lasoo ciyaarnaa rabnaa hana raacdo kadib hayaa la dhihi jiray way wada jireen way isla soo ciyaari jireen kadib way soo celi jireen ma fahanteen marka jihaan yariisay afar jir waay marka waqtigan gabar oo maasha Allah caruur waay laakiin xoogaa adi way hadlee gabar hadleeso wax fahmayso waan fahanteen maalintaas markay maamada ee baxday ee adeeg doonatay wax yar kadib waxaa albaabka la soo gargaraacay ayman soo orday maadaama dabcan way ogeed qofku uu ahaay markay furtayna waxay noqotay saaxiibadeeda oo loo Sakiina ma fahanteen marka ayada way ogeed Sakiina inay u imaanayso that's why yani way baxday way furtay way soo dhaweysay soo dhawaa baayo soo gal adi saaxiib ahaayeen marka saaxiibteed guriga uu imaaday Sakiina kadib markay soo gashay albaabkay xirtay kadib waxay dhahday kor aadayna qolkeyga galeena meesha ku baashaaleyna ku sheekeysanayna because ayadeeda jiifto marawi ina soo kiciyo qosolkeena iyo qaraaxadeena inay ku soo kacdo iyo marawi yani way hurdaa ma fahanteen saasay ku dhahday kor iska baashaaleyna in wad jihaanna waa wadeena marka okay dhahday saasa fiican maadaama ay maamada ay jiifto okay sidii qolka ku aadeen qolka ayman sorry ayman magac wiil waaba ayman okay qolka ayman sidii ku aadeen jihaan way iska ciyaareysaa gacanteedana waxay ka haysataa nacnac ma fahanteen meesha iska ciyaaraysaa dhulka fadhisaa labadoodana meesha fadhiyaan way iska babaashaalooyin way iska sheekeysanooyin way iska qaraaxaysanooyin marka wax yar kadib waxay maqlaayaan mar labaad albaabka la soo garaacay Sakiina waxay dhahday ayman albaabka la soo garaacoyay hooyada inay tahay laga yaabo hooy Naciim inay tahay baxs safar markaas ayman waxay dhahday may hooy Naciim ma noqon karto hooy Naciim furaha ayada buu haysato oo albaabka soo iska safuri kartaa markaas waxay dhahday okay ayada ma hamiyaha that means qof kala soo gargaraaco albaabka okay markaas waxay dhahday ani dhar fiican oo asturan ma watiye orad adi deg albaabka soo fiiriya waay Sakiina saasay ku degatay markay degatay ayadoo dhinaca albaabka u socoto hal mar isku naxday marka way naxday waxay dareentay like qof gadaasheeda mar way camal markay saas u fiiris gadaasheeda waa gabadhii yareed oo jihaan oo soo dabraacday way soo dabraacday markaas ay dhahday waa isku naxay iga tag jihaan waa iga naxisay dhahday marka albaabkii yaa waay dhahday markay dhahday cod weyn ani waay fur markaas waxay dhahday ani waay ma fahmoosid miya eedadaada ahay iga fur albaabka okay bas markaas ay furtay waxay dhahday alla eeda igraal noqo ku fahmin codkaaga qof kale ku maleena igraal noqo markaas dib ma leh dhahday soo galay dhahday soo dhaweey sidii ku soo gashay markaas waxay dhahday maxaa Naciima aawe habar Naciima ma joogtay suuqay aaday dhahday ma fahanteen Sakiina waxay ku dhahday suuqay aaday hadaaysa u baxdo waay waxay doontay adeeg guriga doontay eedadooda waay oo qabay dabcan oo afarta wiil dhashay waay oo diriskooda ahayd oo qabay wiilka Yuusuf walaalkiis markay soo gashay waxay dhahday waxa uu imaaday idin soo salaamo ustaad Yuusuf hooyadiisa aaway ayadana inaa la sheekaystaa rabaa markaas waxay dhahday qolkeeda ku jirtaa ay dhahday hore u soo dhaaf qolkeeda waa kaas markaas albaabka markay xirtay Sakiina waxay dhahday jihaan soo bax
markaas eedadii yaa soo booday waxay dhahday maya dhaaf jihaan ana ay la sii joogto gabadheeda ani xataa waa u xiisay muddo ma arkin waa u xiisay marka waa salaamaya ayada maamadane waa la sheekeysanaya anagina la sii joogay ani maamadayna la sii joogay adi iska bax saaxiibada u tag marka ani dhameysto sheekadeeda iska baxayo ana albaabka tartiib ina baxo albaabka waa xiri doonaa ay dhahday sakiin waxay dhahday eedo gabadha yar jihaan laga yaabaa inay baxdo oo anaga ogeyn banaankaas aadee albaabka hore u sii xir ama ii wacanaaba xiraayo haye waaye dhahday bas sidii okay ku dhahday eedadii marka waxay is dhahday qolka gal ayay fiir bal inay la sheekeysatay rabtaa maahano qolkii ay gashay qolkii markay qolka maba galinba madaxaysa uga dhiibtay waxa aragtay maamadii jiiftay aragtay way hurdaa maamadii qolkii maba galinba way soo baxday adi meesha daarad camal fadhiisatay jihaane wacday xadaaday kaale hooy way u tagtay gabadh yareed markaas waxay dhahday habo ii waran see tahay waa ku xiisay habeesiisay markaas waxay dhahday waa isla ciyaareyna okay ani ila joogyaa haye dhahday gabadh yarista madaxa iska luleeyay waa yartaa maho marka yani waa iska faraxsan tahay kaas eedadeeda waa mar walba aadi jireen gurigeeda ku soo ciyaari jirtay eedadii baageesaan u furtay waxay soo bixisay xarig oo very thick oo yani oo adag baageeda ku soo bixisay markaas waxay dhahday sugbal wax yar ha isnuuxjinin xarigaana ku ciyaareyna ani adi xarigaana ku ciyaareyna okay dhahday gabadhii marka way aabantahay markaas waxay dhahday waa ku seexinayaa sidii maamada ee uhurdo mideeda ahaa adina waa ku jiifinaa waa ku seexinaa marta inaan saas ku seexiyo gabadha waxay dhahday maya hawrir ha iseexinin marabi ani inaa ciyaaraa rabaa ay dhahday ma fahanteen marka waxay dhahday okay haye waa isla ciyaareyna xarigii qaaday dhuunta u wareejisay markaas waxay dhahday sugbal dhuuntaada khayaasteeda fiirinaaye wax yar sugyaha is dhaqaajinaya dhuuntaada khayaasteeda fiirinaa bas yaa waa ciyaareyna kadib okay gabadh yariis wax ma fahansana haye iska dhahday ninaceeda iska haysata hal mar xirtay marka xiriga ku dhuujisay hal mar xirtay gabadhi isla markii naqaska yani naqaskiya ku yar adkaaday inay neefsato markaas saas ay dhaheen faantay saas ma qeeli karto damo gabadhi yar inay wax yar xitaa qeylis isku daydo eedadii waa ku sii jiiday xiriga yani saas ku sii yeelay waa ku sii dhuujine hoosna waxay ka leedahay like tartiib in la maqlo marabta moogtaa hoos waxay ka leedahay dhimo waa dhibtay dhimo hoos ka leedahay ayman iyo saaxiibteeda qolka koray joogaan waxna ma maqlaan dabcan because way busy way iska baashaalo way sheekaysanayeen sheekada u socoto halkan dhinaca kalena maamadii ayayada way hurdaa marka ma fahanteen marka naagtan saas markay ugu dhuujisay waa kusii wadaale waa kusii dhuujinaysaa le xooga ugu sii dhuujinay markay kusii dhuujisay gabadha marka saas ay u lahayd weerafanoosa nafaa hayso gabar yar waaye yani tabar ay isaga celiso isaga reebta ma laha ma fahanteen marka ayadan xoogeeda dhan ay ugu dhuujinaysaa gabadhiisay u rafanaysa saas u dhehaysa mana hadli karto ma qeeli karto because dhuunta laga xiran dhuuntay ka xirantahay saas xataa ma qabo karto tabar ma laha ma fahanteen ilmo yar waaye marka xaasidadii yani eedadii saas u yeeleed ma fahanteen saas waa ku sii dhuujinay waa ku soo markii dambe hal mar ma xirino markii labaad markii saddexaad adi waa sii xirtay si oo u furmin ma fahanteen siba oo u furmin waa sii xirtay xarig waas marba waa sii dhuujinay markii dambe gabadhii waxay isku bedeshay kalarkeeda jirkeeda blue oo noqday blue oo u dhow black ma fahanteen يعني blue oo wax yar madow u dhow marka jirkeeda dhan soo noqday oo isbedelay way ka foqday dhulka ku deysay gabadhi marka way rafanee sakaraad way nafa hayso marka dhulka saas ugu deysay waxa laga yaabaa inay isdhehaysid way u naxday camal ama xoogaa naxariisa soo gashay camal
أما يعني إني إسكب حذي رواتي عمل ما دام هلاها أصلاً عذابس كعجسي حرقة إني إسكب حذي إسكدم علي أما وي عبسطي أما وحينا فكرة سالية ما هو أما نحريز إني صقش ما دام أيضاً هواي تا أفر عرور صقش مركا taasna in la isweydiiyo waaye bahooye waaye caruur afar caruur ee haysataa see ku awooda yacni gabar yar intaas la eg inay xalahaas nacaab iyo xasidnimo iyo cadaabtaas ay u geysato cadaabtaas intaas heerkas mareyso yaa oo maanta qof weyn xataa u adkeysan karin cunug yar see ugu sameyso waxaas oo isdifaaci karin oo daciif oo innocent لكن سيداس ماهن وحي يعني سمينيس وح كدرناسي سميس او